su-aashayda aan halkaas ka dhaliyo waxaa jirta kulamo fara badan oo kuwan oo kala ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed isugu yimaadaan meel kasta ay joogaan gobol kasta ay joogaan ama maamul kasta ay joogaan idinka dhalinyaradiina hadda barnaamijkan wada kulanka noocan oo kala ah ama kulankiina kani wuxuu kaga duwan yahay kulamada kuwaas oo kala ah sida loo ogsoonaa Soomaalidu markasta isku yimaadaan way hadlaan oo yaani markay hadlayaan aad bay qurux badan yihiin waxaad u maleynaysaa inay sameeyaan wax aad u wanaagsan yaani marka meesha fadhidid haddana waxaad arkaysaa iyadoo aan dib isugu soo laabaneen marka idinka midiin qorshaysan tahay yaani afcaal ama actionno aan ku qancin karno oo aan dhihi karno dhalinyaradii maalintaas halkaas nagu casintay way kaga duwanaayeen ama way kaga fiicnaayeen kulamadii kuwaas ahaa ama badan baa jiray oo la qabtay sida daraateed muxuu kaga duwan yahay shirka kan kulamadii hore oo aan hore u soo aragnay kuwaas oo qaybtood ahaa kuwa mar inta la qabtay aan dib la isugu soo noqon jawaabta macquulka ah waxaan dhihi karaa waxa jira shirar kala duwan oo la qabto kuwaas oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada ujeedooyin gaar ah oo kala duwan xambaarsan iyo shirar la mid ah kuwan oo kale oo leh dan guud sidoo kale shirkan wuxuu la mid yahay shirarka danta guud ee dhalinyaradu isugu yimaadaan waana shir ay leedahay dhalinyarada daljoogta ah ee Puntland waa shir dhalinyaro waxaana maalgelisay dhalinyarada sida u jeedaan halkaan uga muuqataan hadeertan inay jirto hay'ad ama cid gaar ah oo lagu maaragtay qeexaya halkan ama meel hablaha maalgelisay shirarka badanaa markii la qabanayo waxa ku aragtaan haddii rabaan kuwa intay waxaan u qalmintay dhalinyarada ka dhahaaneen bay intay isugu yaadaan meesha isaga tagaan marka shirkan waxyaalaha uu kaga duwan yahay shirarkii hore oo la soo qabtay shirarkii hore dhan kama duwana maxaa yeelay waxa jiri kara shirweynayaal kale oo dhalinyaradu sidaan oo kale isugu yimaadaan laakiin shirkan waxa kaliya oo xambaarsan yahay oo u gaarka ah waxa weeye inuu yahay inaan dhalinyarada dalka joogta anagu wada tashanno inagoo maalkeena iyo tabaceena gelinayna inagu inaan isu nimaano meel fofog isaga nimaano gobolo kala duwan isugu nimaano aanu isku nimaano waxa hadda ka hor waxa jira shir guud oo dhalinyarada aan ka qayb galay maalin dhalinyaro ahayd markaas waxa naloo wada keenay koofiyada yar yar ay ku qoran yihiin waxay ka timid dadweynaha Mareykanka markaas waxa soo jeeday dadweynaha Mareykanka ka timid fanaanadahaas hadii hadda la qiimeeyo iyagoo dhan $100 waxa laga yaabaa inay gaareen waxa ugu qori weedeen baa dadweynaha Puntland bay ka timid dadweynaha Soomaaliyeed bay ka timid qof Soomaaliya xitaa bixin karo meesha fadhiyay marka waxa u jeedaa wax micno la'aan maaragtay in lagu yaado hadhow ilmaha yarka arkay waxa dadweynaha Mareykanka ka timid xayala qofka meesha laga halaakiyo waxa weeyaan civic education inay tahay maaragtay waxbarashada asaasiga ee wadaniyada ee madaniga in laga lumiyo marka shirka kan waa shir la rabo in aad u taageertid waa shir la rabo in aad u qayb ka noqotid waa shir la rabo in aad noqotid qofka adigu budbigaha u ah waa shir la rabo in aad soo arkin inuu shirkan koox gaar ah wadato laakiin uu yahay shirka daljoogta dhalinyarada Puntland iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo noqon doona midka ku faafo waqtiyada dhow ee mustaqbalka sidaa darteed qayb ka noqoshadaadu waxa ay muhiim u tahay dhiirigelinaysaa inaad xasuusatid kuwii Soomaaliya dhacdooyinka caalamka ku daray oo ahaa SYL taariikhda Soomaaliya soo heliyeen in ay hayaan 13 qof oo dhalinyaro ah oo haysan wax badan oo haysatid cilmiga in haysatid facility kale in haysataan noqoto lacag iyo wax kale iyo materialka caalamka lagu xiran in haysatid laakiin in ay hayeen niman is-aaminay goostay inay ka dhabeeyaan in hadafka ay leeyihiin marka waxaan leenahay shirkan waa shir aynu nagu leenahay oo dhalinyaradu ay leedahay oo dhalinyaradu u gaar oo cid kasta ka madax banaan wixii dhalinyaradu leedahayna waxay rabaan in si siman inta loogu kaxeeyo hoggaankeedan loo waxeeyo qorshahana waxa rajaynaynaa inuu saxmaan insha Allah bidnillaahi kariim maskaxna la geliyo sidoo uu noqon lahaa shirkan cid kasta oo ku hawlana waxa uga mahad celinayaa mar kasta si gaar ah waxaan u rajaynayaa hawl kasta oo la qabtana waxay leedahay caqabad marka caqabada Soomaalidu qofku markay ku dhacdo way critics gareeyaan way maagaaneen waxay dhahaan hebel wasa dadkuna waxa la laba jeer ama laba nidaam ama laba qaab bay qofka u critics gareeyaan ama u cambaarayaan qofkaasi waxaana ku baran inaga wax la yiraahdo cambaartin in raano qofka hebel saas ah warnagada hebel waa faashilay warnagada hebel waa qabyaaleyste warnagada hebel waa nima waxba korin waa nin waal inaan dhahno kale laakiin laba baa ugu cambaar yiraahdaa labada mid koowaad waxa lagu qeexaa inay tahay ignorance inay tahay qofku marka koowaad adiga wax ka sheegaya ama barnaamij ku dhaliilayo ama barnaamijkan keentay uu ka soo horjeesanayo inuu soo waxan micno weyn u lahayn isaga oo aqoon u lahayn mid labaad waxa la yiraahdaa nichiros waxay dhahaneen oo ah qofku inuu waxaan isoo ka masiirsan yahay oo wax isoo intuu qaban waayay inuu markaas dad wax qabtay uu rabo inuu intuu meelaha darbiyada fadhiisto oo dadkii maago yiraahdo nimankaas waa niman amal waayay marka aku dheeraaday intaas ku soo gabagabeynaa insha Allah bidnillaahi kariim waxa ku wareejinaya Cabdullaahi si uu
wixii ajandihii iyo miitinadii ka soo baxay iyo faahfaahinta guud noola sii wadaago.